Asad Xaaji wuxuu ka faa'iideystay fursado badan oo YouTubers-ka kale ee caanka ka ah Muqdisho aysan ka faa'iideysan ama aysan arkin. Fursadahaas waxaa ka mid ah tartanka mataanayaasha. Wuxuu barnaamijkiisa ku tartansiiyay dhowr mataano kala duwan, isagoo sameeyay muuqaalo badan oo ay daawadayaal badan ka heleen. Barnaamijka gabdhaha yaryar ee caanka ah baraha bulshada wuxuu isku keenay gabdho caanka ah baraha bulshada, isagoo u sameeyay barnaamij iyaga u gaar ah taasoo ay daawadayaal badan xiiseynayeen. Tartanka rigoore ee ciyaartoyda wuxuu qaar ka mid ah ciyaartoyda dalka ku tartansiiyay rigoore, taasoo xiise gaar ah u yeelatay taageerayaasha ciyaaraha. Tartanka gabdhaha ee baska wuxuu magaalada dhexdeeda bas ku maray, isagoo gabdho badan ku tartansiiyay isla markaana soo bandhigay bilicda magaalada, taasoo dad badan soo jiidatay. Tartanka Royal Rumble wuxuu dhalinyaro badan u qabtay tartanka Royal Rumble oo caan ku ah ciyaaraha WWE, taasoo noqotay mid ay taageerayaashu aad u xiiseeyaan. Tartanka rigoore tuurista ee gabdhaha wuxuu gabdho badan ku tartansiiyay tuurista rigoore, taasoo noqotay mid aad loo daawaday. Intan hadda ay la soo gaartay, fadlan follow iyo like inoo saar. Mahadsanidin.